الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد walaalayaal waxay soo gaaray video kooban oo ay sameynayaan wiil dhalinyaro ah oo laba ah videogaana waxaa lagu sameynayaa wiil kale oo dhalinyaro ah oo culimo ah oo waxyaabaha ay ugu yeeraan dadka dhalinyarada ah baranki wiil yar oo culimo ah oo xer ah ay aad uga naxinayaan ayagoo ku tilmaamaya inuu tuug yahay ayagoo dhahaya waxaad tahay tuug waxaad naga xaday mobile baad naga xaday magaalo hebel baad nooga xaday intana waad joogtaa wiilkiina aad ay u argagaxayaan waxyaabaha igu kalifay in videoga aan soo duubo waxaa ka mid ah erayada wiilka oo ku hadlaayo iyo sida ay u dareemi laayihiin wiilasha ay u fahmi laayihiin wiilku wuxuu leeyahay walaalayaal aniga waxaan ka imid kitaab iyo masaajid baan ka imaaday waxaana u socdaa kitaab kale iyo masaajid kale ayaan u socdaa laa xawla walaa quwwata illa billah wiilku waa wiil dhalinyaro ah darsi iyo diin barashadii ayuu ka imaaday masjidullaahi ayuu ka soo baxay wuxuuna u socdaa masjidullaahi iyo kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala se u bara lahaa adiguna waddada ayaad u istaagtay adigoo ku ciyaaraya adigoo rabaa in aad ka naxido adigoo u baahan in lagu qoslo amba fuyuus badan ku raadinaya ayaad wiil dhalinyaro ah oo kalaamka ilaahay baranaya masjid ilaahay ka soo baxay kitaabada ilaahay gacanta ku sida una socda masjid u socda darsi ayaad wadada u gashay wuxuu ku leeyahay masjid baan ka imid kitaab baan soo dhageystay waxaan u socdaa masaajid kale kitaab baan u socdaa walaalayaalow iga daaya qashqashaada anigu tuug ma ahi xataa sheekayga ii geeya saasuu ku andacoonaya adigana qosol iyo waxa u baahan tahay waxaa meesha loo joogin ayaad meesha ku haysaa war ma og tahay dadka dhalinyarada ah oo xerta ah oo kitaabka ilaahay baranaya ku mashquulsan habeen iyo maalin u soo taagan in diinta ilaahay ay kor u qaadaan oo diinta ilaahay ay bartaan waxaan barankii la leeyahay inaysan warba u haynba barankii waxaad dhahaysaan iyo waxa social mediaha ka socdo inaysanba war u haynin ma waadan ogeynba ma oga shaqana kuma laha ma fiirsadaan xataa social media telefoon xataa ma haystaan xerta xataa looma ogola inay soo qaataan adiguna wuxuusan weligii maqal iyo wuxuusan weligii lagu tilmaamin ayaad ku tilmaamaydaa oo dhahaysaa tuug baa tahay telefoon baad iga qaataad leedahay asna wuxuu ku leeyahay darsi baan ka imid darsi baan u socdaa waxaa suuragal ah wiilkaasu in uusan saaka quraacan maantana uusan qadaynin cashana meel uusan ku ogeynin suuragal wa maxaa yeelay xertu in fara badan oo xerta ka mid ah tacalluq ma haystaan waxaa suuragala walaalkii oo xerta kale ah ama subax ay maalku akhriyaan ama cid ay soo quraamiyaan in yaroo ka mid ah in ay raashin ka soo cunaan ayaa suuragal ah waxay cunaan xataa inaysan haysan waa suuragal waa wadaad maskiin oo xerooba ujeeda cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiis oo ku tacalluqsan yahay masjidka ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana hooyada inta canjeero ka soo badiday raashin nooca ugu dambeeye lagu soo siiyey telefoon qaaliya lagu soo siiyey aad waddada taagan tahay qof walba waddada soo maraayo ayaad waxaad ku leedahay waxaas baad iga xaday subxaana allah arrinka aad ku dhaqaaqaysaan iyo arrinka barankiga la yidhaahdo waa arrin dunuubta ilaahay laga galo subxaanahu wa tacaala kuwa ugu waaweyn ayuu ka mid yahay walihaada culummada qaar kutubta ay qoreen oo ay ka qoreen dunuubta waaweyn alkabaa'ir la yidhaahdo waxay ku dareen waxa aad samaynaysaan oo barankiga ah maxaa yeele barankigu waa qof muslim ah in laga nixiyo wey qof muslim ah in laga nixiyo taana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa xaaraam laa yaxilu lmuslim an yurawica akhaah qofka muslimka uma bannaana in walaalkii uu ka nixiyo uma bannaana waa xaaraam qofka muslimkaa in laga nixiyo aslan ma bannaana qof muslim ah in laga nixiyo alimaam muslim kitaabkiisa wuxuu ku soo wariyey xadiid nabiga uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man ashaara ilaa akhiihi qofkii ku tilmaama oo ku ishaaro oo ku fiiqa walaalkii bixadiidatin bir
man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin qofkii walaalkii ku tilmaamo oo ku ishaara maratayaa bir iyo waxyaabaha waxa dila iyo waxyaabaha waxa ka nixiya qofkii ku ishaara yalcanuhu lmalaa'ika malaa'igta ayaa lacnadaysa xataa yadachu ilaa uu ka tago waxaas uu samaynaayo malaa'igta ilaahay ayaa lacnadaysa wa in kaana akhaahu liummihi wa abiih qofkaas laga nixinayo ee waxa lagu taagayo haba ahaado walaalkii hooyo ah oo ku aabba ah ha ahaado aslan ma bannaano qof muslim ah amba ha kuu dhowaado amba ha kaa dheeraado in aad ka nixiso waxyaaba uu ku argagaxayo ku naxaayo inaad ku samaydo ma bannaana in gaarigaaga aad ku soo leexido si aad uga nixido ma bannaana in qorigaaga aad ku taagto ma bannaana in tooray aad ku taagto ma bannaana in alaabtiisa oo meel tiilay koofi iyo saacad iyo cimaamad iyo ookiyaal iyo qalin iyo caday iyo waxyaaba la mid oo meel u yaallo inaad inta ka qaado ka qarido adigoo la ciyaaraya ma bannaana xaaraan wey wax walba oo qofka muslimka ah uu ka argagaxayo ma bannaana xadiidkaas sidaas ah marka uu sharaxaya alimaamu nawowi calayhi raxmatullaahi wuxuu dhahay tarwiicu lmuslimi xaraamun bikulli xaalin qofka muslimka ah in laga cabsi geliyo oo laga nixiyo waa xaaraam xaalad walbaba waa xaaraam mar ay bannaan tahay qofka muslimka ah in laga nixiyahay ma jirto dadku way kala daran yihiin dadka culummada ah dalabatulcilmiga ah odayaasha waddooyinka maraya iyo cid walba oo cabsidaas waxyaaba dhibaato ah oo saa'id ay gaarsiinaydo iyo aysan gaarsiinhaynba waa isku mid dadka muslimiinta waddooyinka maraya way kala duwan yihiin habaarka ay ku habaaraan iyo nixitaanka ay kaa nixayn ayaa laga yaabaa in musiiba aad ka qaado hortooda